Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Sida aan la socono maanta casrigan aynu joogno waa casriga wax walba oo leysdheeryahay laysugu faano. Hadday noqoto aqoon, hadday noqoto tiknoolajiyad, hadday noqoto cilmi iyo waxbarasho, iyo hadday noqoto hubba. Insha Allah maantana muuqaalkeena waxaan kusoo qaadanaynaa waddamada haysta taajiriinta ugu badan ee adduunka. Innaga oo ka bilaabayna waddamada ugu taajiriinta yar kuna geynayna waddamada ugu taajiriinta badan insha Allah. Waddanka kaalinta shanaad ku jira waa waddanka Ruushka. Ruushka 2010kii waxaa ku noolaa 61 bilyaneer ama taajir. Daraasad la sameeyay 2020kii ayaa waxay sheegaysaa in bilyaneerada ku nool waddanka Ruushka ay gaadhayaan 99 bilyaneer. Waddankan oo dadka ku nool ay tiradoodu tahay 144 milyan waxaa ku soo kordhay muddo 10 sano ah 38 bilyaneer. Waddanka kaalinta labaad ku jira ee aynu muuqaalkeena kusoo qaadanayno waa waddanka India. Waddanka India daraasadii la sameeyay 2010kii waxay gaadhayeen bilyaneerada ku nool 49 bilyaneer. Daraasadii u dambeysay ee la sameeyay 2020kii ayaa iyaduna waxay sheegaysaa in ay ku nool yihiin waddanka India 102 bilyaneer. Waddankan India oo kaalinta lixaad kaga jira waddamada ugu dhaqaalaha badan adduunka waxaa ku soo kordhay muddo 10 sano ah 53 bilyaneer. Waddankan saddexaad ayaa isna wuxuu ku yaalaa qaaradda Yurub waana waddanka Germany. Waddanka Germany 2010kii waxaa ku noolaa 52 bilyaneer. 2020kii waxay gaadhayeen bilyaneerada ku nool waddanka Jarmalka 107 bilyaneer. Waddankan oo kaga jira kaalinta afraad waddamada ugu dhaqaalaha badan adduunka, tirada dadka ku noolna ay gaadhayaan 83 milyan, waxaa ku soo biiray muddo 10 sano ah 55 bilyaneer. Waddanka labaad ee isna ay ku nool yihiin bilyaneerada ama taajiriinta ugu badan ee adduunka waxa uu noqonayaa waddanka China. Waddanka China 2010kii waxaa ku noolaa 64 bilyaneer. 2020kii waxay gaadhayaan bilyaneerada ku nool waddanka China 389 bilyaneer. Waddankan oo ah waddanka labaad ee ugu dhaqaalaha badan waxa uu ku jiraa kaalinta labaad ee ay ku nool yihiin taajiriinta ugu badan ee adduunka, waxaana ku soo kordhay muddo 10 sano ah 325 bilyaneer. Haddeerna haddaynu eegno waddanka koowaad ee ay ku nool yihiin dhaqaalayahanada ama taajiriinta ugu badan ee adduunka waxa uu noqonayaa waddanka Mareykanka. Waddanka Mareykanka 2010kii waxaa ku noolaa 404 bilyaneer. 2020kii bilyaneerada ka soo jeeda waddanka Mareykanka waxaa lagu qiyaasay 697 bilyaneer. Waddankan oo kaga jira kaalinta koowaad waddamada ugu dhaqaalaha badan ee adduunka waxa uu kaalinta koowaadna kaga jiraa waddamada ay ka soo jeedaan bilyaneerada ugu badan adduunka. Intaas ayuu muuqaalkeenu ku egyahay. Ha iloobin in aad nagu soo biirto haddaanad weli naga mid noqon. Intaynu muuqaalka xiga ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa maca salaama.